munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ururada bulshada rayidka ah iyo aqoon-yahano ayaa ujeedadeedu ahayd dhiirigelin iyo sagootin iskuulka Imaam Maalik uu sameeyay Cumar Maxamed Muuse oo ahaa ardayga kaalinta 7aad ka galay imtixaanka dowladda ee sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee 2017 iyo 2018 waxaana Cumar Maxamed Muuse uu ka mid ahaa ku dhawaad 40 arday oo ka qalin jabisay iskuulka Imaam Maalik dugsigiisa sare Sheekh Xasan Maxamed Geedi maamulaha iskuulka Imaam Maalik ee magaalada Cadaado ayaa waxa uu si qoto dheer uga sheekeeyay marxaladihii uu iskuulku soo maray isagoona sheegay in ay juhdi badan geliyeen sidii ay arday tayo leh u soo saari lahaayeen ka hadaan halka uga baxo waxa sharaf weyn inoo amaantay in aan kaalinta 7aad ka galnay imtixaankii la qaaday ee dawladda Soomaaliya ay qaaday oo ay isugu yimaadeen halkaan ay wada galeen imtixaankaas 25,679 arday ayaa gashay alxamdulillah ilaah baa mahad iska leh kaalinta 7aad ayaan soo fariisanay runtii waxa hadal aan ka sheegi lahaay oo dhan ragii iga horeeyay ayaa sheegay waxa soo hooyay runtii arintan sharafta leh oo dadaalkeeda muujiyay arday hadda inta wax u sheegto wixii ku qabto oo birina soo bixiyo mirihii aad abuurtad ku farxayda oo ah geedkii aad shalay abuurtay oo miro yeeshay oo mirihi ay baxeen soona gooyay mirihii marka mirahaas waxa noo soo hooyay oo noo soo gooyay ninka la yiraahdo Sayid Cumar Maxamed Muuse Cabdi ayaa noo soo hooyay maamul goboleedka hadda halkaas kaftan yar ku daro habeen aan xaflad qabanay waxa la yiri qoladii soo hooyda oo keenta kaalin 10 ugu horeeyay the first 10 toba yiraahdaan 10 ugu sareeyay qoladii noqota baabuur iyo qalab kale oo ka dambeeyay leey 10 waa keenay Galmudug waxaan uga fadhinaa laan cruise baabuuradan la yiraahdo Leyli Calaawidi nooci ugu dambeeyay mid waxaan aynu ku dayimaa insha Allah taala waa uga fadhinaa dabalgabeedka Galmudug inay noo keento wixii ay noo balqaaday ugu dambeyntii iskuulku wuxuu galay laba imtixaan labadaas imtixaan uu galay xogaa warka waa soo koobay maadaama insha Allah dad badan ay ka dambeeyaan labada imtixaan aan galnay waxay ahaayeen oo si caam loo galay imtixaankii FBNS iyo imtixaankii kale ee dawladda runtii labadaas imtixaanba oo aan galnay waxba ku ardaydii iskuulkeena ahayd oo Imaam Maalik wax ka dhacay male bal iska day ninka ugu hooseeyay qofkii ugu hooseeyay 76.8 ayuu ku baasay 76.8 labada meelood mid kalena waaba ka sii sarreeyay wax yar darajadaas oo runtii darajo sarreeyda markii loo fiiriyo waa ninka ugu hooseeyay kuwa kalena 90 and above 93 kor wixii ka koreeyay ahayn midka dawladda hadaan u soo noqdo runtii in ay soo baxdo aan meeshaan nimaadno 3 sababood ayaa muhiim u ahayd 3 sababood waxa ugu horeeya koow imtixaankii oo aan baxsan dawladda imtixaankeedii oo aan baxsano sidii waayida hore waa jiray aan magaalada soo galin warkiisa ka soo hormarin waa the first one ahead mid koowaad ahead in imtixaanka uu ahaa imtixaan gacan ku jira la second waxay ahayd inuu imtixaanku maxay wardiyiis oo adkaa oo aad loo adkeeyay wardiyiis oo runtii nimankii la soo diray ay imtixaanka aad u adkeeyeen wardiyiisi saddexna waxa ahayd in ardadii diyaarinay oo kulaytaba arday u diyaarsan imtixaankaas galaan ay ahaayeen saddexdaas oo isbiirsatay waxay u fiican yihiin ninkii wax soo bartay xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cascasey iyo xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Qalinle waxa ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen doorka iskuulka Imaam Maalik uu kaga jiro deegaanada Galmudug iyagoona ardayda dhamaysatay dugsiga sare ugu baaqay in deegaanka ay waxbarashadooda ka sii wataan waxa kale oo dhici doonta oo soo socota ardaydaas wax u badan inay helaan jaamacadda dibadda oo heerkoodu sareeyo jaamacadaha dawladda laftirkoodu hal dal oo 10 arday bixinaya ma jiro dalalka kala duwan meel wax lagu kala baraya kala duwan fursado way kala duwan yihiin heer Galmudug oo dhan kaligiisan u maleeyo 10 arday inuu jiro waxaan rabnaa wasiir adiga iyo madaxweynahaaga iyo dhammaan maamulkaaga in dawladaha ugu sareeya dalka dibadda sidii loo qaaday ardayda inuu ardaygan uu ahaado ardayga koowaad inuu marka waxaan idin rajaynayaa sidoo kale ardayda hadda mar sanadkan gali doonto sanadkan waxaan u maleynayaa inuu yahay 17 18 18 19 19 soo hayo marka isku day
in maaragtay sawirkaaga la weyneeyo ardayda kale lagaa weyneeyo inaad isku daydo ku dadaal waxaan aad kale u hambaleynayaa rag kale oo maanta maaragtay wax ka soo qalan jibiyey oo magaalada jooga ku soo laabtay oo isku dayaya marka magaalada inay maaragtay waxbarashadooda ay zaa'idiyaan madaxda magaalada ay ka qayb qaataan kuwa xataa muqdisho aaday waxay dareemayaan haddii jaamacaddii maaragtay meesha magaalada ka jirtay ee amnigeedana uu fiican yahay inay soo laabtaan oo dhahaan war maxaa muqdisho kugu wareerinaya ee magaaladaadii jaamacaddii taalo oo maaragtay fursadana aad ka helaysaa burhaan cigaal warsame wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa munaasabada khudbad ka jeediyey waxaa marka mudan Cumar Yare oo intaas tartan la galay oo caawa cadaada jooga koow horta waxaa labay magaalada hamiinkii lagu dhawaaqay natiijada inay dabaal degto isku mid noqoto dhammaan bahda waxbarashada iyo ganacsatada iyo degmo intaba waxay ahayd arrinkaa horta number 1 in waxa ugu weyn oo soo hooyay inay tahay in xoog la saaranta oo la soo sheego waxa la rabay gaadiidka wasaaradda waxbarashada inta la gaari ka hor in wax badan abaalmarina oo degmada ka yimaadaan wax badan oo wanaag ah oo lagu qaabilo Cumar Yare oo kulligeena matalaya marka taa waxaan rajeynayaa in arrinkaas uu bilaaban doono haddii hadda ka hor aan la sameyn waxaan soo jeedinaynaa degmadan inay xaflad isku diyaariso ganacsatada inay la kulanto dadkeeda inay mataqaanaa ay la hadasho number 2 waxa weeye waxa laga dhawaajiyay wasaaradda waxbarashada anaga markii Cumar uu arrinka soo baxday natiijada waan fariisanay shir baan fariisanay sida uu ka dhawaajiyay agaasimaha waxbarashada waxaan ka hadalnay sidee loo maamuusi karaa waxaan go'aansanay caasimadda Galmudug Dhuusamareeb iyo madaxweynihii iyo dadkii oo wada jira in xaflad loo dhan yahay oo aan loo kala maqnay in Galmudug heer Galmuduga inaan dhigno hadii la yiraahdo taasaan qorsheynay ugu dambeyntii Cumar Maxamed Muuse oo ahaa ardayga kaalinta 7aad ka galay imtixaanka dawladda ee sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee 2017-2018 ayaa dareenkiisa cabiray kaalinta aniga gaaray waxaan ku gaaray waxay tahay gargalkii maamulka iyo waalidkay sidoo kale waxaan mahad celinayaa ardayda intaas sano ee soo fadhinay maanta aan ku qalin bedelanay rajeynayno in waxbarashadeen hor u sii wadano waxaan rajeynayaa kaalintan kaalin ka mamsan gaarno waxaan sidoo kale u rajeynayaa ardayda naga dambeeyda kaalin ka wanaagsan inay kana soo hayaan Saadaq Saciid Nuur Galmudug TV gaalkacyo